وإيسي منتهي هوية إيه دارودنا aniga guri isiyo mise baawur ii gadabsa bil iga bixiya ma jiro way ii simayeen maanta marka dhintana kaliya ba dhimanaya cidna ima raaciso marka taas hal ogaado geesado hawiyo waan nacabtahay iyo balaaya kala qaadaysan aniga ma kala qaano daaroodkii waan kala aqoonin marka maanta daacadda ka hadalo ma hawiya qaldan mise daaroodka aniga waxay ila tahay hawiyo inuu qaldan yahay waa inta kaliya ka hadlay intaas waay inta kaliya isweydiino haas fahansiino waxa iska dhadhicino waxa laga yaabaa in dad badan oo naga dambeeyo dhalan doon inay qaataan dadka niga weyn maanta Soomaaliya isku dagaalaya qabiilka iyo qabyaaladda ku taageersan shakhsi gooniya inay ka soo noqdaan bal yaaba bal ummad Soomaaliya wax ay maanta ka faa'iidi karaan ha isku keeno ha meel wada dhigno bal ha qaada dhigno hadalka wuxuu yahay aniga waxa ila qaldan in hawiya ila qaldan muxuu ku qaldan yahay meel fog uma raadinayno hadda xaaf wuxuu yiraahay Kenya annaga waa noo dalkayga walaad in dhibaato la dhex marto ma rabno aniga kula hadlayo hanti baan ku leeyahay waa deganahay annaga Kenya shal wuxuu la hadlay idaacadda VOA waxa uu reesanahay qof kale hawiya ma ahan in ereyada ay weydiinayso qof daarooda mise qof kale oo Soomaaliyeed aan hawiya ahayn ma ahayn qofka wareysiga qaaday qof hawiya waa marka waxa dhigana wareyskaas wuxuu ahaa laga qaaday VOA ka qaaday daacad buu ahaa xaaf wuxuu yiraahay aniga Kenya waa taageersanahay guri baa iga dhisan wuxuu fiirsaday maalkiisa iyo gurigiisa laakiinse ma fiirin dhaxalka wiilkiisa iyo aniga iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan badeena dhulkeena iyo Kenya isku dhacsanahay ma fiirin wuxuu yiraahday Kenya guri baa iga dhisan gurigeygana rabaa Kenya marba inaan la dagaalno Soomaaliyana ka daran farmaajiye khayra gar daran taas buu wuxuu hawiyo ku qaldan yihiin oo dhaxaaf inay ka hor imaadaan dhagax tuuraan maanta laga cayriyo galmudug bay ahayd ma ahan inay guriga sii kashadaan ay taageeraan ay la wareegaan ay nabad iyo nolol ma rabno waxa taageersanahay xaaf waxa uu ku qaldan waa waxyaalahaas oo koow iyo laba iyo saddex iyo afar baa dhigi kara waxaan yahay waliga waxaan dhigi marka la soo garo warahawiye markii 1991 uu dhacay waxay ku faanaan gabdha daarooda baa bedel ku gurnay daaroodkii qaxinay waxaan geynay dhadhaab Mareykan annaga ka tuuray annaga Soomaali burburinay annaga Muqdisho qabsanay Muqdisho daaroodku markuu joogay magaalay ahayd caalamka imaan jiray way dhisnayd way qurux badnayd damaashada loo imaan jiray Soomaaliya oo dhan waxay dhigatay Muqdisho waxay ku faanaysaa hawiye in ay burburisay in ay ayadu gubtay in ay ayadu fiiqday waxa marqaatay ii furash ciidii shalay ahayd soo dhaafay 3 isbuuc ka hor aamino weeliye oo qabyaaladu aad ugu weyntaa BBC oo shaqeyn jirtay sheegtay in wax soo baratay sida meesha lafteeda ku sheegtay in aqoonyahan tahay idaacaddan uu soo shaqeysay soo baratay kulliyadda kalkaaliyada ka soo baxday ee aqoon leedahay waxay tiraaday ninba ay guursaday dhahay ninkii hal cunug baa u hayay safar buu iga aaday wuxuu iga tagay gurigiisa dhahay gurigiisa habeenkii ma seexan jirin waa waardiyeyn jiray waxa weydiiyay cabdigood maxaa ka waardiyeyn jirtay illa fiiqdo درجة قريها ولا في خنجري والله في قيمة حالة قرقة تشا سقفك قريها دقة حمد من كرانة سقفك في قناة في قناة إن قرية شينكتا كرة إسانا سقفك إن لفيقضو بان كعب سنايا يا في قناة وهبر قدر با في قناة وموريان با في قناة وتوغا في قناة حالك نبتا وإن رطرس كشيغا أمنا ولي ويقرين جرتي أمنا وهلي يودلك هويها إلا مدك ويقريان رطة بشيغان لكيس هذا الكيبا لقري إن الرطة كهدشو إن الرطة كهدش هذا الكيبا لقري دارود ميل فيقضي ميل بربرية مجرو قروي دارود كاد السي ودو صوماليات ويل بو صوماليا يقبر والبو صوماليا ما أنت كفانيسا waxa iska umada Soomaaliyeed daaroodku wuxuu ka soo bilaabay meel baabahu ka soo bilaabay maanta caasimad bay u dhigatay waxa lagu leeyahay in madaxda Soomaaliyeed dhanba seexan karto ku noolaan karto u hooyin karta daaroodku way dhiseen Puntland daaroodku way dhiseen waa la hormariyay dadku isma dilaan isma baabiyaan waxba isku dhibaan aan kufsi yiriso ka dhaca waxa laga dhigaa balaayo in adduunka godoomayo Puntland dad lagu madiro qarax kama dhaco al-shabaab kama jirto tuugo kama jirto biliilqo kama jiro waxaan taa ula jeedaa koob iyo sagaalkii nin ee raxweyn ee gaalka ay lagu dilaayay dad baa loo soo qabtay shalay ma ahan dorra dad baa loo soo qabtay ciidan badan oo habargidir iska leeyahay ayaa soo weeraray inaa maqshin kala maqan gaalkacyo waxay raadinayeen dadkii loo soo qabtay dadka laayay inay sii daayaan ee meeshaas oo dagaal ka dhaco waxay rabaan in dadkii la laayay inaan waxba laga soo qaadin wallahi ilaahay iga sarray ciidan badan oo habargidir soo aruursay oo odayaasha hawiye soo aruuriyeen baa meesha gaalkacyo baraxle loo yaqaan dagaal ku soo qaaday waliska caabiyay nimankii lama baxsanin lama saarin waliska dhiciyay
hawiyaha iskuma raacaan wars waxaan baa saxa haddaan Soomaaliin nahay ha sameeyno ha dhisno dadka Soomaaliyeedna ha u yeerano ha iska dayno inaan wad isqarxino inaan dadka guryahooda deganaano inaan maanta biliiqo ku noolaano inaan maanta maartay dadka layno inaan ku faano inaan daarad qaxinay inaan daarad dadaab geynay inaan bateri ku guray inaan muqdisho daafiiqanay maanta u diiday inay soo galaan mar labaad dhisaan inaan dawlad yeelano inaan tuugeen iska cayrino intaba ma ogola anagu fiiri aniga kula hadlay Axmed Madoobe ma taageersan maxaa uu taageersanay dawladda Soomaaliya ka soo horjeeda Kenya taageersan yahay dawladda la shaqeynaayo Kenya wata al-shabaab wata geedii uu gubaya waxa leena waraan laga cayriyo waxa fi asagu isku darajo isku meel bay haystaan waxa waliba ka awood badan waxa maanta dhigi karna oo ka awood badan oo qabiilkiisa ilaa Itoobiya gumaysanaysa oo keensaday Axmed Madoobe waxa leena xaalad dagaalo hal la dilo meeshana laga cayriyo hal la soo xiro baan leenahay ma aha kaliya in anagu xaaf taba socono xaaf dawladda hala shaqeeya leenahay dawladda ha cadcaa leenahay Kenya ka hor maana leenahay waxa anaga naga farxinayo xitaa farmaajo waxa ku dhici karo annaga han noo qabto hana tusiyo xaaf waa taageer leen laakiin xaaf adu intaas u diiday dawladda ayaa ka saxan dawladda khalad kuma hayno dawladda kan ba ku taageersanahay ma ahan in xaaf u nicibnaa inuu yahay nin hawiya oo habar gidira oo kana uma nicibin waxaan u nicibnahay xaaf inuu annaga danteena noo wadan ee dawladdu ka saxan tahay ma dhahayn xaaf kaliya nicibna maamul goboleedyada shalay daniyo la soo doortay col baa la naharay in la bedelo oo waarna in la cayriyo waarna in la soo xiro waarna in la dilo waarna ma ahan marka annagana dadka daarood inaan ka hadlayna xaaf la leeyahay war xaaf aan u maraysa inaan ku wareernay mise ku qafiifnay habar gidir iyo hawiye iyo xaaf inaan ku qafiifnay may maamul walba oo Soomaaliya maanta ka dhisan Hiirshabeelle iyo maamulka la yiraahdo Southwest أن مدحضر مانتا وتاجير كرنا دولتنا وجوهر ما كرنا وحيالا مانتا الدولة ديسو وحن بكوه سنة مجرد كيا ما هيستان هذا اللحن كمان نمقل دولة مرة ولا شقيا مرة ويكوري ماذا هو أيوة حق بالله وقف نول قلت بويالا كلام دولة كوري ماذا لكن سمر كلنا ورحاف حلا عيريو هويو حكو تاجيريا وهويو كوكل ديا مانتا حافل اسميه ودارو نعب كما هن إن التاجيريا نمونا يكسن الصومالي يجعل ودنتو يجعل ما هن marka kuleel hawiyuhu qaldan yahay qaladka hawiyaha ma fahmaan ayagu ka iimaanaya ma fahmaan meesha hadalku u socdo kaliya waxay ku jiraan inay hawiyuhu qaldan yihiin tartan ee leeyihiin daaroodka la tartama daaroodka iska dhiciya daaroodka maanta intuu xaaf niga qaaday maanta waa nii dhimaatay warshada Cabdikariin guuleed baa la safnaydeen xaafaad diidanaydeen daaroodka wuxuu dhahay war Cabdikariin waa bedelinaa war xaafaa keenina war Cabdikariin wuxuu qaban waayay wasiirka arrimuhu qaban waayay gudaha Soomaaliya markuu xashar joogay war madaxweyne ma noqon karo saddex gobol ma maamul karo wasiirka arrimaha gudaha ayuu dadku isku diray ayaa qarxi dhimaan waayay waxa ma qaban kara hal la bedelo shalay waa diidanaydeen xaafa shalay ka soo horjeedeen ba maanta taageeraysan maanta xaafa hadii la cayriyo hal baa nii sheegaya maanta xaafa hadii la cayriyo oo mid kale la keeno xaaf waa iloobaysan ka kale anagu keensanay oo dawlad ahaan ku keenay oo nabad ahaan ku keenay oo Soomaalnimo ku keenay haduu halaabo birikii kale hadana leedin waa ku dhigsanaysan xanjada ku dhigsanaysan waa taageersanahay waa la jirnaa waana asagaan la jirnaa leedin ma oga dadka Soomaaliya waxay ka hadlayaan waxa la yiraahdaa umul miya ana ilowsho dhawa war shalay markaa ka soo horjeeday odagan xaaf aniga aan keenaayay oo Cabdikariin guuleed abadalay waa iga soo horjeeday waa ila dagaalaysay maanta maxaa isbedelay shalay ninka taageersan in shalay ninka ka soo horjeeday oo aniga taageersan haddaan dhago shalay anaa keenay maantana shaqada u dirsaday waa qaban waayay odagan waa deebar baa u xiran wadanka ma oga maskaxdiis ma shaqeynayso waxa uu jeeda la jecel asagu leeyahay uma jeedo la jecelada ummadda Soomaaliyeed gurigiisa Kenya ka dhisan iyo maalkiisa iyo qaadka Kenya uga soo dhaco ayuu ninkan aaminsan yahay ma aaminsana Soomaalinimada haddaan anagu inta leenahay afahmi wada maxaa ku qaban karnaa maxaa anagu ummadda Soomaaliyeed u qaban karnaa xagee baa loo dhaqaajinayaa dawlad baa soo dooranay haddaana dawladdan anagu taageerin yaa taageeray marka yaa garab istaagaya yay dawlad u tahay waxyaalaha ka hadlayna waa intaas marka leena war way qaldantihiin ee qaladkiina aqoonsada waa inaad nala shaqeysaan waa inaad fahantaan waa inaad maanta dhalaan war anagu kan marka waa qaldan yahay muxuu ku qaldan yahay kan iyo kan buu ku qaldan miiska ku saaray iima soo saari kartid yani farmaajo la jirta daarood baa tahay daarood ahaan baa hadlaysaa waa daanaan waxaas ka tahay may igama ha daarood ahaan dawladda Soomaaliya daarood iska malaha ummadda Soomaaliyeed baa dhaxal dawladda u leh waa qor isku dib farmaajo shalo imaaday birina waa baxaya mid kala imaanaya maanta doorashada ku soo dooranay aan uga dhignay madaxweyne iyo aan ku sharafnay sharaftii buu leeyahay wuxuu noo qabanayna waa waxaan u dhiibanay inuu noo shaqeeyo wixii qaldan inuu naga qabto intaas waa inaan ugu taageertid waa inaan garabkayga noqotid waa inaan dawladina awood yeelataa
maraykan ma dhacayso maanta maraykan ma dhacayso raashiya sheeganayso dhul maraykana nin amerikaana intuu tago raashiya tago inuu taageerayo guri baa ku leeyahay raashiya maraykan aniga ma taageersanay raashiya taageerin amerikaana ma dhigi karo waa la soo qabanayaa waana la xilayaa waa dil bal ninka Soomaaliga adiga kula dhashay waxa bal fiir laba af ay ugu sheekaysanaysaa munaafiqnimada lagu yaqaana munaafiqa baa lagu yaqaana laba af ay ugu sheekaysanaysaa waxa leedahay Kenya la dagaalno dhulkeeni bay sheegatay waa adiga hawiya dhigayso waxa leedahay Kenya la dagaalno dhulkeeni bay sheegatay nooma sheegan karto geeda ma soo gali karto ayna dhulkeena fiiqaraysa had samta af labaadna waxa ku leedahay xaaf waa jecel oo Kenya taageersan oo dhahay Kenya waa ka gardaranahay marka adigi hadaa laba af leedahay oo munaafiqa tahay sidee baad ummad Soomaaliyeed ula noolaan kartaa sidee baad wax laga dhaadhacsiin karaa sidee baad wax lagu qaybsan karaa waxyaalo badan bay u baahan tahay ummad Soomaaliyeed inay runta isku sheegto war hawiyo maanta waa khaldan tahay biri hadaa saxan tahay ninka daaradu khaldan yahay waan ka qabanaynaa maanta waa khaldan tahay qaladka ka soo noqo nala shaqee waan kula shaqeynaynaa dhulkan wada leenahay wadankan waa naga dhaxeeyaa ina wax wada dhacsano waayo ina ummadda Soomaaliyeed wax u qabana waayo aniga wiilka daarood iyo wiilka hawiye wallahi ana kala jecel horaan igu soo bilaabay haddana waan igu dhameynaya daarood iyo hawiye way isma yihiin laakiinse kii saxan baa anigu aan ahay maanta daarood baa saxan daarood baa aniga ahay waxba kama qaban karo cadaaladda ayaan mar walba la jiraa daarood ayaa maanta saxan daarood baa ayaan la jiraa khadar said wuxuu yiraahdaa FIFA Kenya dadka yiraahdaa FIFA Kenya inaad hore u ogeyn bal laga yaabaa meeshan meheeradan ana iskale ana ii furan tahay ana ka nacnacleeya wixii Kenya taageersan blog baan u diraa Chance baan ku siinaa dadka chance ma siiyo ka soo noqo waxa tiraahdaa khalad bay iga soo dhacay ergaas mise walaasha iga yar baa soo qortay dheer ka soo noqo haddii kale blog baa ku diraya wajigan maad foosho xun leh waadan ma daawan doonto ilaahay ka taynaa daawan doonto blog baa ku diraya inta dhimanayo waa ku jiraysaa waan ku sheegay ka soo noqo ha soo qorin ergaas dambe yaan laga maqlin hadaa soo qortay blog baa ku diray intiina ku jirta ogaada waxaan ka heen Sahro Kayf gabadhaas waxaan ka heen intiina kalma soo qori kartaan gabadhaas kaliya soo qori karto Kenya sheegay kartaa waa gabar yar oo Soomaaliya ku dulman waa qabiilada laga dabaday yahay waa 4.5 loo sheegay way careysan tahay waxay rabto ku hadli kartaa xorbe u tahay gabadhaas si kala loo haysaa Soomaaliya maadaama lagu dulmiyay inay Kenya sheegto xaq bay u leedahay wir blog saar dawartid wallahi billahi talo ila qof Soomaali aan dulmi ka galin ummadda Soomaali 4.5 kan ma ogali ummadda Soomaali kulli waa 5 kulli waa buuxaan Soomaali waa loo simeeyahay wiilka gabooyaha waxaan aamsanahay inuu Soomaali madaxweyne ka noqdo wasiir ka noqdo ra'iisul wasaare ka noqdo aniga inuu Italian aamsanahay wiilka gabooyaha aniga walaalahay iyo gabdhahayga iyo caruurtayda iyo wax walba aan dhalo way geeyaan aniga way waa u siman aniga gabdhahooda waa geeyaa aniga gabooye ma dhibaan iyo xar ma dhibaan wax walbeeto waxay yihiin dadka daaroodka ay ugu isibayeen ha ogaadaan haday gabar iga jeclaadaan ay ga soo doontaan hadaan gabar ka jeclaan alla waxaan u sheegayaa inuu buugaygu furan yahay naxariista ummadda Soomaaliyeed aan isku dabeecad ahayn aaminsanahay Soomaalinimada islaamnimada wax walba ay gala weyntaa ha ogaadaan dadka Soomaaliyeed ma kala saaro taas waxa ku ogaarsa adeeqso inuu qabiilaysta ahayn dadka Soomaaliyeed Soomaali way u siman yihiin laakiin cadaaladda ka shaqeeyno farmaajo ana dhii sheegaya 4 sano markay dhamaato hal sano iyo barba hartay doorasho hadda loo dhaaqi doona ha wax yirisa noo haray ha adgeysan waxa la geesinimada waa in yaro cagaha dhulka lagu sii hayo gunnimada iska daaya waxa iska dhigtaan dad wadaniga oo gobaha wiyo cagaha waxay dhulka ay biraa ay reena oo bedelina hadii ilaahaymo mid ka fiican baan keeni doona wax xoga yaro cagaha dhulka waxyaalaha u dirsanay farmaajo waa qaban waay laakiin wuxuu naga rabaa xurmo madaxtinimo inuu naga weeyahay inuu madax noo yahay inaan dooranay inuu xil noo hayo inaan wadankeena asaga aan ku sharafno soo aan wadankeena sharaf u yeesho waa inaan asaga boobono soo wadankeena hawada noogu aado waa intaas kaliya waan bedeli doonaa 2020 waxa naga xigaan dadku xilliga 2021 ka maaha been yar isku sheegin 2021 ka xilka lagu kala wareegaya laakiin doorashada waxay dhacaysaa 20 ga dhamaanaysaa sideed beri waa inta la qaaqaabinayo inuu kursi ku fadhiyo madaxweynaha kale ee la dhaariyo ma ahan in 2021 doorasho dhiciso waa 20 ga hadda nagu soo aateen hal sana ka hartay ummad Soomaaliyeed ha ogaato 20 ayaa noo haray kaliya waa hal sano wallahi ana aaminsan in farmaajo la bedelo in xilka laga qaado dacdo hadlayo in xilka laga qaado in la bedelo laakiin si sharaf loo qaado oo daaradnimo ku jirto ya la dhiibay waxa fi qarayla fil Soomaaliya fi qaraylayo si qurxoon u dhisatahayo alaabta lagu dhisay iyo jiigada ku dhisay wallahi billahi hadaa fi qalo guriga waa weyn qurux badan ka dhisanayna kan ummad Soomaaliyeed ba ka dhaxaya lacagta lagu dhisay fil Soomaaliya qayb ba ku leeyahay ana ka qatan imagine lacagta lagu dhisay fil Soomaaliya hadii dhila deeqayso lacagta fil Soomaaliya lagu dhisayo ma adiga qaadanaysid Soomaalinimada ma ka baxaysa Soomaali waadama kama hadlaysid mise fil Soomaaliya kugu dhisnaa qaybtaada
ogolaasho ana ogolaaday ka mid tahay in fil Soomaali liidhiso liyo qurxiyo waxa dhira qaybtii qaadana waad mar kama hadleen wala in Soomaali ka hadleen wala aan daaradnimo sheegteen wala aan kala jecel wixii dhimanay laakiinse waxaan u ogolaaday ani waxaan ka qatarahay in fil Soomaali lagu dhiso lagu qurxiyo ina hormarto wadankeena ciyaalkeena dhaxal yeeshaan dhaxalkeena ayaan ka hadlayaa farmaajana ma ahan Queen Elizabeth ma ahan insha Allah xilka wala qaadi doona waxaan aaminsanahay habar gidiro xanaaqsan guriga Soomaaliya madaxweyne ka soo noqon oo sheegato oday ku meel gaar ah oo ma qan hal sanad bar wuxuu joogay xil ayaan soo qabtay waxay dhahan hal mar soo qonay wallahi waxa aaminsanahay in habar gidir madaxweyne laga dhigo 2020 wallahi aaminsanahay waxaan u aaminsanahay midda labaad guriga Soomaaliya xil ma soo qabanin in lagu ay markooda lagu fiiriyo bal inay wax sixi karaan iyo inay si fiican Soomaaliya u furfurtaan taas in meel u dhacday raba midda labaad raba waxa waay xulufo waxay la yeelan doonaan leelkasoo lagu sheegay laangaab yihiin inay ra'iisul wasaare siin doonaan ayuu ka xanaaqsan farmaajo iyo marreexaan oo ra'iisul wasaare ka dhigay waxa la jiray ra'iisul wasaaraha maanta jooga ee Soomaaliya marraba qabiilkiisana sheego kala qaado ninkaas awiyaha maadaama leeyahay ninka nin laagaab waaye waxa xilkas kala habar gidir iyo abgaal ninka ma noqon karo hadda waxa raba inay dhahan marreexaankii marjeeteenka inay dhahan baraba leelkasoo waa laangaab uma qalmaan ra'iisul wasaaraha mucaarad baa dawlad ku noqon marka waxaan aaminsanahay nin ra'iisul wasaare nin madaxweyne habar gidir hadduu imaado 2020 ina aniga kursiga ra'iisul wasaaraha ku farsanayo taageernimadayda maadaama xoogaa Soomaaliya qabyaalo ku jirto haddaan kaarka qabyaalada banaanka soo dhigo waxaan u taageersanahay inuu noqdo habar gidir madaxweyne wallahi meesha waxaan ka urinayaa ra'iisul wasaare leelkasa ka urinayaa oo lagu bedelayo khayraad booskiisa nin laagaab oo meesha laga dhigay ra'iisul wasaare laagaab leelkasa laga dhigi doono waa midaan taageersanahay haddii noqoto siyaasad iyo kaari ma ahan dad la isku diray in la isku nacmaro siyaasad dartana oo midda anoo kale igu jirto inuu Soomaaliya fahanto ayaan aniga halka ka dareemay ila socdo ila shaqeeya waxaan taageersanahay madaxweyne 2020 habar gidir ah bal fiir habar gidir meesha geeyay maalin walba habar gidirta ka hadlo oo indhahay war waa tuugo maahan inaan nacbahay waxa la fartaada waxna filfilqa maarto aniga habar gidir marna igama dhimanin waan jecelahay waan taageersanahay maanta meesha u sareysa ee Soomaaliya ayaa la rabaa inay fuusho oo lagu fariisiyo ayada madax noo noqoto intuu saxan yahay waan taageeray laakiin maanta isku xaaro waan ka hor imaanaya ilaa uu ahaado ra'iisul wasaaraha leelkasa mu ahaado wallahi waa ka hor imaanaya haday qaldamaan waxa dhaaya way qaldan yihiin waa tuugo dhulkay furfuranayaan habar gidir koodii madaxdaha iyo koodii tuugaha wali wasku si waa dhigi doona taas meel baa ku qorayna laakiin soo haduu qaldan yahay haduu saxan yahay waa la dhimanaya mar walbana ma ogolaan doona in xilka laga qaado 4 sano aan u dhamaarin asagoo furfuranayo waa qaylina laakiin ma ogolaan xilka laga qaado waxa aamsanahay 4 sano qofka loo soo doorto inuu dhameysto sida dawladdu noogu sii socoto dhulka nooga burburin ee balaayo u dhicin Itoobiya ilaahay burburiyo inta ku soo gabagabay Faataxda Umar inuu ilaahay Itoobiya burburiyo